وسلامتين دمانتين كسو قيبقالك أد كسو قيبقاشين شركة قيمها بدن وأنو قتلا قلني إن أنو كغا هذا النو لباتوين كجرة بنتلان إيو هيكسيغا 4.5 وأيهان دنبي آد لو هذا الهيو إيو بلشوين ترهير بنتلان أركتدا إيكاغا آدن iyo waxa ay ka qabaan waxaan halkan insha Allah taala ku soo dhaweynayaa dhamaan marti sharafta halkan ka soo qayb gashay iyo dadka martaqaana speakerska ah runtii meel fog nooga wada yimid iyo magaalooyin kale iyo dad reer Minnesota ba hadduu alla idmo barnaamijku wuxuu noogu socon doonaa si kooban hadduu alla idmo waxa ugu horeeya insha Allah taala ayadaha quraanka kariimka noogu horeeya oo insha Allah taala anagu idin akhrin doono si waqtigaan uga faa'iideysano kadibna insha Allah taala waxaan noogu xigi doono speakeradii oo aan rajaynayno hadduu alla idmo inay waqtigooda hadduu alla idmo ka faa'iideysan doonaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo dhammaan shacabka meeshan isugu yimid iyo speakeradaba inaan xasuusiyo uma aanan imaanin inaan halkan dad ku cayno uma aanan imaanin inaan runtii mataqaanaa dad wax laga sheego uma aanan imaanin in aynu mataqaanaa dad ku dulmino laakiin waxaan rabnaa in aan kaga hortagno cidii dad dulminaysa wixii dulmi wada in aan ka shaqeyno dadka wax taraya ee aanan ka shaqeynin wax dadka kala fogeynaya Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wat tawasaw bil haqq wat tawasaw bis sabr sadaqallahul 'azim haddana insha Allah Usmaan baan ku soo dhaweynayaa nabadoon Usmaan eegal بسم الله الرحمن الرحيم wax badan oran maayo waxaan jeclahay mowqifkayga ku aadan shirkan waxa loo qabtay inaan yar ka iftiimiyo horta markii hore waxaan salaamayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee shirkan soo abaabushay waa salaamaya waxaan kaloo salaamayaa bahda miidiyaha Soomaaliyeed oo shirkan hadda caaw ka soo qayb gashay ayagana waa salaamaya waxaan kaloo salaamayaa dhalinyarada iyo odayaasha intaba inta ka soo qayb gashay shirka waa salaamaya ayagana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كبعدي شركة وحى الله قبتي تاجرة كأدن موفك 4.5 Soomaaliya maantay ay qaadatay baan ku taageeraynaa shirka saas Allah qabtay sida aragtaan oo tabeelaha hadda meesha ku qoran annagoo marka ah jaaliyada Puntland dadka shucuubaha degan Puntland ka mid ah waxaanu taageernay 4.5 baanu qaadanay oo dawladda Soomaaliyeed ee federaalka hadda dhisan baanu waxaanu ku ayadeenaa Soomaali weyn markay isu timid oo tashatay 4.5 xal baa la biday Soomaaliya waxa hadda u dhisan inaysan ka burburin Soomaaliya jarjarooyin badan bay soo madhay dawlad ku malgaaray soo madhay federaal bay soo madhay oo 4.5 ku dhisan ayadana xal baa la biday waana laga gudbi doonaa laakiin hadda maantay 2016 dawladda la dhisayo Soomaaliyeed caqabado hor taagan baa jira oo ay ka mid yihiin الشباب oo dalkii bar haysta gobolada rabay in la dhiso aan wali la dhisin gobolada laftigooda oo hadda dhisan oo aan loo sameeyno xuduudo waxyaalahaas caqabadahaas baa dawladda Soomaaliyeed maanta hor taagan saa darteed beesha caalamka iyo Soomaali oo isu yimid waxay go'aan ku gaareen in 4.5 maanta Soomaaliya wax loogu qaybiyo 4.5 marka waxa ka hor yimid oo diiday madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas waxaan leenahay markii 4.5 Soomaaliya mar haday isu raacday waxaan qabnaa annaga jaaliyada Puntland annagoo ah inuu Cabdiweli soo raaco oo Soomaali raaco baanu yaani Cabdiweli ku jawaabeynaa haddii alla idmo marka shirka sidaas loo qabtay caawa cidna wax looga sheegi mayno mowqifkayga ku aadan Soomaaliya hadafka maanta ay ku socotay wadada ay haysto inaan ku taageerno baanu shirkan loo qabtay annana waa taageerina 4.5 baanu qaadanay ninna wax looga sheegi maayo Soomaalina waxaan jecelahay inay israacdo oo midowdo Soomaaliya ha israacdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay sida mowqifkiisa uu cadeeyay haddana insha Allah taala waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno siyaasi weyn oo caan ah Muuse Xaaji Abeys oo taqaanaan siyaasi caan oo la yaqaan oo runtii reer Puntland wax badan u soo shaqeeyay wax badan la sameeyay ummadda Soomaaliyeedna runtii magac iyo sharaf ku leh runtiina aad insha Allah taala afkiisa ka maqli doontaan runtiina ragii Puntland dhisay kana soo shaqeeyay waxna ka soo qabtay ahaa adeer Muuse ku soo dhawow fali tafadal
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة إسلام ككذب. وإذا السلام يا سلامة إسلام كأيان يكون سلامي. كلن كان قبلها مروين كأي مدرياش يسوي مادين. هنا كسوق يقول اللي هو عسومي. وأكون مع سنتين. waxaan u malaynayaa haddii aanan qaldanayn idinka ay sixi dooneen in dadka halka isugu yimi ay yihiin reer Puntland ma run baa mise waa beentay calankaanu kii Puntland ma yahay oo kii gaar ahaaneed ma xidigleedii waa maqanta xidigle wax uu keeni weydeen gadaasheeda saartay waa mahadsantiin tan oo soo tii Puntland waa ii qirteen waa mahadsantiin waxaa la ii sheegay Allahu naxariistay Sayid Maxamed marka uu caroodo wuxuu dadka waxa lagu dejin jiray oo ku xasili jiray loo lagu oran jiray dara lagu deg sayidi dara lagu deg hadda dara lagu deg idinkuna hadda reer Puntland tihiin dara lagu dega waa idin leeyahay Soomaalidii hore waxay oran jirtay miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma muhiimtaani miyir iyo wada tashi iyo isla qodax bixin iyo xagee ka balowna iyo xagee bay ku maqan tahay iyo xagee bay inoo ka dhowdahay waxyaabo badan in la isweydiiyo ayaa fiican waxaan doonayno ama ina ka maqan aan ku doonano Puntland ergan Bunti wuu jiri jiray so many thousand years ayuu jiray so many thousands of years ayaa Bunti PUNT uu jiray landa indaga ku darsan waxay noo ka horeysa Somaliland hadii dhulkii waa la iswaafajiyay dhulkuna hadii Bunti buu ahaa landina waa lagu sii kobciyay taariikh buu leeyahay aan gobollo kale oo lahayn oo qaali ah oo taariikh oo weyn ayuu leeyahay dhulkii udgoonka waay ilaahay wuxuu ku manaystay oo ilaahay inuu ku manaystay bahasha la yiraahdo luubaanta taas way Buntiga udgoonku meesha ku imanayo waa taas way ilaahay haddana ummadeena inteeda badan meesha ka shaqeysato waa iyada oo waliba hadda isbedel uu ka dhacayo qaali adduunka uu ka noqday la bartay dal qaran baynu ahayn nadirabees aad u mahadsan yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan saxo 4.5 xaq maaha laakiin waa xal waay dad badan oo Soomaaliya oo gobollo badan ka yimid oo mataqaana Soomaaliya oo isteediyada Soomaaliya ku heshiiyay hal gobol oo annagu aan ka tirsannahay oo annagu aanan ku midaysnayn caawa waxay u dhagan tahay waa reer Puntland waa 4.5 inaan taageersannahay inaanan haynin haddii aan hayno in 4.5 wax ka bedelan haddii maamulkeena hayaan oo ay ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigayaan oo diyaarsan oo 6 bilood lagu sameyn karo waa soo dhaweynaynaa gacan siiya dadka Soomaaliyeed waxa la dhisay 4.5 ilaa dawladda Cabdullaahi Yuusuf baa la soo dhisay waa lagu soo shaqeeyay maanta maxba meesha la marayo 4.5 baa lagu gaaray Puntland 18 sano jirta 18 sano Puntland jirto hal meel oo laga codeeyo ma taalo hal qof oo leh mataqaana car ID ma lahan hal qof oo leh mataqaana system shaqeeyo oo mataqaana dadkii la tiro koobay ma lahan Soomaali oo dhan ma lahan haddii maanta la yiraahdo hal la orayo deegaan hal la qaato waxay u baahan tahay 2 sano 3 sano oo soo socota dadka Soomaaliyeed lama tiro koobi karo shabaab baa meel walba haysta meel walba waxa degan mataqaana qabaa'ilada haysta maamul goboleedyadii kale Soomaaliland lama hayo galmudug wali mataqaana dagaalada ka socda wada koonfurta Soomaaliya kismaayo ma ahan intii kale waxa haysta shabaab baa haysta see looga gudbaya 4.5 arrintaas macnaheedu inaan jecelnahay 4.5 ma 4.5 idima jecla cid soo dhaweynaysa ma leh laakiin maxaa hal haysa
hadday macnuhu tahay waan diiday hadda kaliya wax ma diidi kartid anaga reer Puntland baana reer Puntland 600 oo qof baa waxa la isugu keenay la yiri 4 magaalo loo keenay Puntland 4 magaalo ma garowe gaalkacyo iyo maahan mataqaan meesha la yiraahdo 600 reer Puntland maaha Puntland inta anaga aan ka warqabno 600 oo hadda codaysay oo tiri Puntland 4.5 waan diinay oo Soomaali oo dhan raba isbaarada hadda in loogu dhigto waa 600 oo shaqaale ah oo Bayruulka Cabdiwali ku jira way arinta anaga yeelimayna marka anagu gacanteena ku dumin mayno Soomaaliya reer Puntland waa dadkii dhisay waa hooyadii Soomaaliyeed way hooyadii Soomaaliyeed ka yeelimayna marka in anaga dadkeedii ah oo aysan nala tashanin inta go'aan iska gaaraan dad kooban inay yiraahdaan yeelimayno waxa yeelay Jubbaland baa yeeshay galmudug baa yeeshay waxa yeeshay mataqaana ay sheegeen maamul goboladii kale oo dhan baa yeelay dadkii Soomaaliyeed oo dhan baa yiiday haddii maanta la hayo wax ka duwan 4.5 oo bari lagu shaqeyn karo soo taageeri mayno laakiin haddaanan haynin anaa diiday ma shaqeynayso Puntland waa doolsho weyn oo dadkan ka dhaxeeya qolo kaliya waxay doonto ma sameyn karto waxay doontana ma saaran karto annaga reer Puntland haddaan runta aanan isu sheegin haddaan been isu sheegno haddaan dawladdeena rabno waxay ama ha khaldanaato ama ha saxsanaato haddaanan rabin inaan saxno oo aan iska sacbinno haddaad 4.5 diidan tahay sida hadda Cabdiwali iyo tiimkiisa u shaqeynayaan 20 sano kale aan ku sii jiraynaa 4.5 reer Puntland bari waxa ka socda waa la socotaan mudug waxa ka socda waa la socotaan reer Puntland iskuma aadana waa in la isku aadiyaa waa in mataqaana laga wada hadlaa masiirka Puntland dad kale oo gooniya masiirka Puntland ma gaari karaan waxay doonaan kuma sameyn karaan arinta marka macnaheedu maaha inaan 4.5 jecelnahay dadku inay saa u fahmaan baa la rabaa 4.5 ka anagu maanta aan taageerino oo aan dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa wuxuu yahay war 4.5 waxaad ku soo shaqaysanaysaa 12 sano la soo dhaafay 12 sano dawladda federaalka oo Cabdiwali uu kamid ahaa oo uu ka soo shaqeeyay Cabdiwali muxuu soo qabtay muxuu ummadda Soomaaliyeed 4.5 markuu meesha joogay uga badbaadin waay oo ugu sameyn waay system marka anigu haddaana meesha joogin macnaheedu waxa waay 4.5 waa nabcahay way haddaan joogana waa jeclahay way haddana Cabdiwali baa mataqaana ka soo tagay Cabdirashiid baa ina Cali Sharmaarka hadda jooga ina Cali Sharmaarka markuu bari ka soo tagaasna wuxuu dhigi doonaa 4.5 mar rabo waxa soo la ururiyay dadka reer Puntland way fahmi karaan waxay garan karaanna way haddana insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweynayaa kaliya arintaas waxaan runtii u sharaxay waxay ahayd war 4.5 anagu ma jeclin laakiin wixii lagu bedeli lahaa ma hayno waqtiga ka dhiman in dalka la dumiyo oo aan maamul loo sameeynin oo baarlamaanka la kala diro oo al-shabaab sidoo hadda adeer sheegay macnaheedu waxa waaye haddii 4.5 la qaadan waayo dawladda meesha ka baxaysa systemka meesha ka baxaya kadib markaas al-shabaab noo imaanaya adeer fakarkiisa waa nin odaya waa nin soo dhisay waa nin soo shaqeeyay wuxuu ka hadlay midnimo ka hadlay waana ku saxsan inuu midnimo ka hadlo in 4.5 laga gudbo waa ku raacsanahay waan ku saxsanahay laakiin goorma laga gudbaya adeer waxaan jeclaanahay inuu noogu daro markaas waxa fiicnaan lahayd ma sanadan kaga baxaynaa mise 6 bilood wax balaana Cabdiwali iyo ragga taageersan midna ma hayaan marka hadduu alla waxaan hawsha ku soo gudbinaya hadduu alla ma soo gudbinaya saacadiya salaad oo aan raba hadduu alla idmo in ay mataqaana iyaduna kalimad ka tiraado ku soo dhaw saacadiyo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waxaan anigu u mahadcelinayaa dhammaan dadkan caawa iyadoo qabow jiro oo baraf jiro ka soo qayb galay shirkan quruxda badan aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaan inta fadhida kor inkastoo aan jeclaan lahaa dad badan inay iga hormaraan laakiin de magacayga waa loo yeeray anigu waxaan ahay reer Puntland dadka qabanqaabada shirkan wax ka lehna waa ahaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo kale meediyaha oo dhan oo caawina lawada jooga waxaan u mahadcelinayaa dadka iyagana caawa dad badan baa soo socda inaan sugnana way ahayd laakiin kol waa iska sii wadanaynaa waxaan rabaa inaan ka hadlo in yar oo ah caawa waxaa laga hadlayaa 4.5 iyo meeshay ku aadan tahay sidaynu nahay reer Puntland
waxaan gacanta ku hayaa dastuurkii Puntland oo 2009kii la sameeyay 4.5 na waa ka horeeyay Puntland waxaan ognahay 4.5 waxa la sameeyay 2000kii shirkii Carta waxaan u maleynayaa ilaa iyo 2000kii ilaa iyo maanta aynu joogno oo loo socdo 2016 waxaynu ku soo jirnay waxa weeye 4.5 marka su'aasha meesha taala waxay tahay 4.5ka reer Puntland markay soo qaadanayeen waxa joogay Cabdullaahi Yuusuf madaxda hadda joogta Puntland ka talisay oo ka wada talinayeen wayna soo qaateen hadda meesha lagu diiday waa midoo hadda wardheera sheegay wariyaa joogay ma waxa joogteen oo layna kala tashaday 4.5 ma qaadanayna Cabdiwali oo yiri baynu aragnay laakiin Puntland waxay leedahay isma badan waa qabaayil isku tagay Puntland wuu ka horeeyay dastuurkan maanta gacanta ku hayo dastuurkan waxa ansixiyay oo sameeyay Faroole marka uu Faroole uu sameeyay Puntland waxay ku jirtay ku meel gaar waligeed kama bixin maxkamad ma laha dastuuriga Puntland dad idea la ma jiro gobolo lagu codeeyo ma jiro madaxweynaha hadda haysta gaas waa la wareysto waxa la yiri gaasow 4.5ka xasee u codeyseen wuxuu yiri gaalkacayo iyo wuxuu yiri Mudug Nugaal Bari iyo Baran ayaa codeysay oo 600 ah waxaana cadaan ah oo aynu wada ognahay inaysan ahayn 600 aysan codeyne Garowe in madaxtooyadeeda ay intay waraaq ku qorteen oo la tagay system Cabdiwali iyo dawladda dhexe ay isku soo diideen inuu intuu meel la soo istaago yiri 4.5 baan diidnay 4.5 waxa la yiri maaliga la sameeyo waa xaq ma ahayn oo hadduu xaq ahaa usan xaq ahayn marka hore horta xaqa iyo xalka yaa horeeya idinkeedu weydiiyay xaqa horeeya xaqiina 16 sano oo maanta hadda lagu soo jiro xaq la'aan baa Soomaaliya ay ku socotay oo dhan midda kale waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo reer Puntland markay hadlayaan always waxay dhahaan international community-ga EU IGAD ayaan u sheegaynaa waligiin idinku ma aragteen international community iyo IGAD oo reer Puntland siyaasad xumada 3.5 ka ay ku jirto iyadoo soo dhexgalayso ka hadlaysa waligiin ma aragteen waa maya 18 sano Puntland dhisanta Puntland waa qabiilo isku yimaaday 18kaas hal jifa haysata waan beba sheegaya halka jifa oo haysatana EU iyo internationalka ma iyaga kaliya wax noo maqlaan horta su'aal baan ugu qabaay waxa anaga rabnaa hadda reer Puntland nahay 3.5ka marka hore in la saxo madaxweyne Cabdiwali North America maanta ila la joogaa intayna 4.5ka u gudbin ani waxaan leeyahay 3.5 dhibaatada ugu weyn oo Puntland taala waxba nalama weydiin 600na kala anigu reer baan ka soo jeedaayo isimadaydu kuma jirin hadii idinka isimadiinu ay been idin sheegay moogi laakiin anigu isimada aan lahaa kuwa loo yeerayna ma aha aqoon-yahanadayada looma yeerin sidee baan marka u raacaa adeerkay hadda wuxuu yiri waa in xaraan weeye 4.5 baa badan 3.5ka Puntland anigu waxaan ahay reer Puntland waxaan ku dhashay Garowe oo ku koray oo inta ku soo leekaaday ama rumaysa ama ha rumaysanina xataa 3ga kuma 0.5ka xataa kuma jiro markaan wax ka waayay oo aan aragnay inaan reerkii dhamaa oo u soo dhintay oo dhibaato kasta u soo maray ayaanu waxaan tagnay Carta markaasaan 0.5ka Muqdisho wax ka raadsanay wiilka yaga boosaas degan waa reerkaani ka soo jeedo iyo kan gaalkacaya degan iyo kan Garowe degan xildhibaano waxay ka raadsadaan Soomaali weyn marka anigu waxaan leeyahay reer Puntland inta gadaal iskugu noqotaan Cabdiwalina North America ku jooga shalina intuu ka tagay maalinkuu tagayay oo Puntland tagayay Cabdiwali wuxuu ku hadli jiray waa ogeydeen wuxuu ka hadli jiray cadaalad wuxuu dhigi jiray professor baan ahay horta cilada haysato Puntland baa ah Cabdullaahi Yuusuf cadda ka liitay caddana Faroole ka sii liitay Faroolena gaas baa ka liitay oo wallaahi حتى قدال وفيريا إذنكو مركا
ninka la dhaho Cabdullaahi Yuusuf naxariista Allah si askari buu ahaa waxaan dhahaynaa nin cilmi lama aha waa oday waxa qabsaday cadde oo xoogaa cilmi uga dhow aan isdhahayna waa nin xoogaa u dee maaragt asagina waanu aragnay Faroole oo ahaa Bangaari baa qabsaday waa ka sii liitay cadde xisaab uu noola yimaaday iyo reer professorkii ninka sheeganayay boqolkiiba 78 baa jifada waa Puntland 80% anigu waxaan hayaa waraaqihii 80% Puntland waa jifada Cabdiweli ilaahay baan idinku sheegay been baa sheegaya haddaa ay tiraahdaan akhriyana waa akhrinayaa waxaan akhrinayaa wasiirada Puntland iyo ku-xigeenada iyo dhiijiyada intaa gadaal isugu noqotaan ninka dhan oo professorka sheeganaya ninkaas dhan oo ka yimaada wadamadan hore u maray aan joogno Puntland waa meesha ugu liidata hadii la fiiriyo dadku ma hadli karo hadda maanta alxamdulillah rabbil caalamiin inaynu Mareykan joogno wallahi intiina halka fadhiday inaydan ka hadli karin inaydan Puntland taa soo istaagtana inta hadda ka dhahaya inaan ka dhihi karin jeel baa lagu geenayaa maalin walba qofka hadlo dhibaatada ka hadlo reer Puntland waa la xiray yaa xirxiray Cabdiweli waa ninka dhamaa professorka adeerkay wuxuu yiri ha loo tago taa hadda maanta Mareykan waa ugu tagi karnaa adeer wax kasta u sheegi karnaa laakiin kuwa Soomaaliya joogay anaga waxba uga baahna dadka wadanka jooga u hadlayna marka runta loo hadlo kuwa Soomaaliya joogay oo baabaasan horta ma ka hadli kara Cabdulla inta uu yimaado dhihi kara Cabdulla waxa naga khaldan no wuu xirayaa wuuna xiraa maalin walba saxaafadii buu xiraa madaxdii buu xirxiraa Cabdiweli Cali Gaas ma matali kar ani kala nama matalo war meedi matala Cabdiweli Cali Gaas anaga nama matalo reer Puntland baadna cadaadu ku dhashay Cabdiweli ma aha reer Puntland qabiilka reer hebel baan ahay aniga markii la dhaho aan ka hadlo aan reer sheego waxa la dhahaa Saacadiya waa qabiileysate laakiin hal qisa idin sheegaya horseed media waxa laga leeyahay qardho dadka qardho degana waa taqaaneen marka la soo saaray wax kale laga ma hadlo waxa la dhahaa wasiirada Puntland iyo qabiilka ka soo jeedaan mise waa been wasiirada marka la soo saaray xildhibaanada iyo qabiilka ka soo horjeedaan waxaas Puntland lagu qaybsadaa waa qabiil war ani markaan qabiil ka hadlay maxaa ceeb ka dhigay waa su'aale ilaa marka reer Puntland madaxweynayaasha ay kala qaybsanayaan ba qabiilku ceeb ma ahayn beena wax u cusub ahayn reer Puntland alxamdulillah rabbil caalamiin maanta reer Puntland nahay aan runta isku sheegi karno aniga Saacadiya la dhahaa garawaan ka imaaday walaalayaal run ahaantii ilaa dawladda ay raacsana 4.5 ka ma raacsanaay inta 3.5 ka Puntland ay baabaaayso or 18 years baan la haystaa waligay madaxweyne ma dooran anigu hadda markii Cabdiweli soo baxay mucaarad baan ahaa 5 sano Faroole mucaarad ku ahaa reer garawaan ahay inkastoo tuulooyinka garaw uu Faroole ku dhashay garaw Muuse ku dhalay ana garaw ku dhashay way maqlaysaa oo reality beenan waxaan ka hadlaayay ma laha waxaan hor joogana waa maxaa la dhahaa waa camera reer garaw badan baa fadhiya oo yaqaana Faroole jifada uu ka dhashay baa ilaa maxaa la dhahaa gobolka ninka haysta iyo ku xigeenka adeer waa sheekadii oo la bedelay uun xisbiyadiina afar oday oo adeeradiisa midba meel magacyo ku dhigteen Puntland cadaalad xumada ay ku jirto iyo 3.5 ka 4.5 baan ka dooranay 4.5 waxaan ogahay inaan u soo laabtaan rabaa 4.5 hal qabiil oo ka maqan oo Soomaali weyn ma jiro 4.5 everyone oo Soomaaliya 4.5 bay ka mid yihiin marka Cabdiweli iyo inta la socota ilaa anagu maanu doorane haday 4.5 ka naga baabiiyaan xagee noo wadaantee ilaa waan ku dhaariyay ma 18 years iyo 3.5 ka Puntland baa waligan taagnaanayna anaga waxa raacsanahay ummadda Soomaalida oo dhan 3.5 kaas 4.5 Allah naga saaro dawlad cadaaladana Allah noo gudbiyo Xasan Sheekh madaxweynuhu ka yahay xataa isaga bay ahayd inuu Puntland soo faragashado dad baa waxay leeyihiin qarax baa ka jira iyo balaaya ka jirta Muqdisho waa loo wada dhan yahay qabiil koonfur aan degin oo aan Muqdisho wax ku lahayn ma jiro waa markii runta loo hadlo laakiin Puntland dadka u dhashay hal xabba kuma haysta hal reer baa haysto jifa oo 20% Puntland ka 80% waa ka qatanahay Puntland waana ka wada qatantiin inta aan ku hadlaynana kama wada hadli karno marka waxaan soo dhaweynayaa anigu 4.5 insha Allah na 3.5 ka Allah naga saaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
saacadii aad u mahadsan tahay haddana ba waxaan ku nasanaynaa gaaciye maxamed jaamac faarax gaaciye oo gabay qiimo badan caawa halkan noo soo jeedin doona ugu soo dhawow gaaciye gaaciye waa taqaanaa waa odayaashii reer puntland waa odayaashii gobolka mudug ka soo jeeday waa raggii caanka ka ahaa arrimaha gabayada iyo arrimaha dhaantaha ee gobolka mudug gaaciye soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يمروا ينوادي سلامي. ورأول 4.5 كانوا عنكو هايستي وسير يجبكو هايستي هذا عدي الله صار نكتدي بابا تاجني. أيضا وحكو هلي شريان هل يجبكو هلي شري هدي قبل اللي يراد ما قبل بدك أنا قبل ما هي. وايا ليس سودي واللي قال علمي هو الوعشان مدريان يبروين وعندكم السلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل واحد ترى يا لي هذا فنك عودي بل فنك عودي بركة هذا ودي فصل لي هذا أنا وفصل دورة إن وين فادي قوي مورم فالله بعندي فادا قبقاني قو يربان فارس قواي هبدا فيلنكي مغضبان فالله بحياه هبدا فيلنكي مغضبان فالله بحياه فنك عودي حاجة تنوى فالله قنياه فراعدة تاني موغتي وفوش الدمي ويدي يورور كم يشوف الدي يدبوك سيفاكتا بونت فايفكا فويس بان كوريدي ميل فقاراهي الكاسار كوريدي أرقو وعيد سنة وي بونت فايفكا فويس بانو ريدي ميل فقاراهي فنك عودي حاجة تنوافا لقونياهي فراعدة تاني موغتي يفوش الدمي ويدي يورور كم يشوف الدي يدي بوغسي فاكتا انت فوشا موغتا دالتكو في عناتو انت فوشي مغطى دالتكو في عناتو عرب المانتا ماشي فدي ضفرني كوكينا عرب المانتا ماشي فدي ضفرني كوكينا فرقارا هكا ويني هالكام فيلين كنوضوان بوينت فايفكا فايس بانو ريدي ميل فقارا ودتك هدو ميل ودا غوري maxaa gadaal noo celinay war dadku hay israaco wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkayga iyo jabkaygana yaa la igu imaan ana waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaan cabdul cabdishakuur oo xildhibaan hore ahaa suldaan ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan mahad u celinayaa dhalinyaradii soo abaabuleen oo sida wanaagsan u soo abaabuleen waa mahadsantihiin marka ugu horeyso waxaan kaloo ku faraxsanahay maanta inaan arko dhalinyaro Soomaaliya mutacalimiin oo ka hadlayaan arrimaha Soomaaliya waa wax lagu farxo waana soo dhaweynayaa arrinta maanta taalo waxa ay 4.5 markii hore maysan hayn xaq waxay xal waxaana ka mid ahaa odayaashii oo Djibouti ku soo suubiyay aan ka mid ahaa 4.5 xaqna ma ahayn laakiin xal Soomaaliyeed bay xukuumadda Puntland inay maanta diido 4.5 horta waa khalad wax kalena ma aha aan diidnay maxaan ku bedelnaa marka ugu horeyso ma noo suubiyeen xisbiyo ma noo suubiyeen kaaba dhaqaaleed ma noo suubiyeen sharciyo wanaagsan Puntland sharci maanta kama jiro
dowladda hadda joogta xukuumadda hadda puntland ka taliso 3.5 ayay ku talisaa innaga waa ka maqannahay xaqna ma aha dadka dhisaan ku jira waalidiintay baa lacag badan geliyeen iyo xoog maantana waa ka maqannahay waxaan u fadhiyey markii la dhisay 4.5 nalooma yeerin nalooma sheegin mana ogi meel naloogu yeero nala dhahay 4.5 baa maanta diidanay waa joojinaynaa oo nala tashta qof nala tashta oo noo yimid ma jiro marka waxaan weydiinayaa shacabka soomaaliyeed puntland ma dad yar baa iskale mise inagoo dhan ma waysan ahayn inaan arrimaha puntland aan wada wadaagno kulligeen ma waysan ahayn dhaqaalaha puntland inaan kulligeen wada wanaagno anigu waxaan dhihi lahaa xaqdarraa ka socoto sharci xumaa ka socdo ilaahay waxaan uga baryaa inuu puntland iyo shacabkeedaba xaqa tuso marka ugu horeyso waana ka xumahay arrimahan maanta lala wareegayo wax xaqa ma jira meesha waxaan kaloo ku darsan lahaa kaali cabdullaahi nadarkii cabdullaahi baa arrimo ku darsanayo oo idinla hadlaya isagoo ka mid ah dhalinyarada puntland usoo dagaalantay fikraddiisu dhiiban rabaa السلام عليكم مرت شرفت ماشي سويت من ومثلا يمروي مبلح إن هرتارتو بطلان وأودلنا وان كوكر عسنا إن بطلان وأودلنا أهانو لكن كم تاجرين واحد قال ما من كتاجرين كلنا سومالي بكلام كان إن هذا نبلونه النجي سومالي إن أذكر هذا نقول سيبتلان dadka annaka ugu dambaynayno baxayna waa wax ayaan daraa aad loogu wasuuso lagana xumaado wax loogu dulqaadan karo maamulka cabdiwelina ma aha dadku Soomaali baan nahay weligeena aan kala sadbursan jirnay laakiin wax naga dhaxeeya jira oo aan meel loo kala tagi karin calankaas buluuga iyo Soomaalinimada midna kuma kala tagi karno ninkii raba inuu ka baxo banaanka isaagoo Soomaali ma raba dheh laakiin ummad Soomaaliyeed oo culummo leh oo caamo leh oo aqoon leh oo saraakiil leh oo siyaasiyiin leh hal nin inuu yiraahdo aniga idin yeerinaya iraaca waa wax ayaan daraa wax aan u dulqaadan karnana ma aha kala sadbursi Soomaali weligeed buu ka jiray wuuna ka jiri doonaa waa wixii aan u dhalannay geel baan kala dhacaynay shalay waa u dhalannay ilaahay baan noo umay maxaan iska bedel karnana ma aha laakiin Soomaalinimada in laga tago oo lagu marmarsiyoodo 4.5 ma rabno cabdiwala isagu 4.5 ka saar meesha bal Puntland dadku waxay leeyihiin 3.5 anu ma aragba 3.0 weey ma aragba wallahi ma arag waa 3.0 marka meeshii shalay aan taagnayn baan taaganaa weli wax iska bedelay oo aan dhaqaale caruus ahayna ma arag iskoolaad ma jiro sharci u degan ma jiro dastuur ma jiro maxkamad ma jiro war heed xagga loo socday 18 sano waa soo taaganahay shalay waxa la diiday xukuumadda Faroole ay diiday in dadka la tiro koobo oo cod la wada qaato la yiraahdo ninka soo tabartaadu meesha ku dhigtaan aragno waa u diiday Soomaali loogu qasbi karaa marka maanta wax loogu qasbi kara ma aha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad u mahadsan yahay ninka dhalinyarada hadalada qiimaha iyo qaayaha la ka soo jeediyay haddana hadduu alla idmo waxaan ku nasanaynaa hadduu alla idmo runtii dad badan baa waxay ka dhawaajiyeen in aan la hadli karin in dadka reer Puntland aan hadal loo ogolayn inaysan fikirkooda sheegi karin waxyaabahaas waxyaabo dhab oo waxa jira kaliya ma ahan Puntland kaliya meelo badan oo Soomaaliya ay ka jirta arrimahaasna arrimaha saxaafadda weeye hadda marka hadduu alla idmo waxaan rabnaa si aan saxaafadda anagoo reer Puntland wax uga baranno waxaan rabnaa bal Cali Xaraare oo aad taqaanaan oo ah wariye caan ah oo ka soo jeeda wariyaashii reer iyo Muqdisho BBC Voice of America oo runtii aad taqaanaan shaqooyinka ummadda Soomaaliyeed u soo qabtay ayaan rabaa hadduu alla idmo bal inuu annaga reer Puntland iyo dhammaan Soomaali weyn inuu noo sharaxo war waxa saxaafaddu ay tahay iyo duruufaha saxaafadda maanta haysta
inuu wax naga yidhaahdo ku soo dhawow cali xaraare ila siiyana gacal waayahay bismi illahi raxmaan raxiim aad baan u salaamayaa dadka ka soo qayb galay xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh anugu inta badan mahadcelinta waxaan ku bilaabaa ama u badiyaa dumarka markaa kadib baan idhaha ragga ayaa mahadda labaad leh intii soo qaban qaabisay saxaafadda inta ka qayb gashay tviyada duubaya barnaamijkan iyana aad baan mahad ugu celinayaa marti sharafta iyo dadka iyana ka hadlayay madashan quruxda badan aad baan u salaamayaa waxaa laga yaabaa in ay maskaxdiina ku soo dhacdo inaan ka hadli doono siyaasad laakiin anugu siyaasi miihi oday dhaqameedna miihi haddii ilaahay kuu ron yahay qaybta aan ku leeyahay barnaamijkani waxaan in yar idin hoga tusaaleynayaa saxaafadda qiimaha ay u leedahay ummaddiinnan iyo sida dadka qaar ay ula dagaalamaan af iyo adinba intan caawa idin hor joogta haddii aanay madashan iman cidina ma ogaateen marka saxafigu ama saxaafaddu waa isha qura ee idin bikaacinaysa idin iftiiminaysa ummaddiinana gaadhsiinaysa warka xaqiiqada ah ee markaa jira siyaasadda soomaaliya waxaan uga hadlay waa siyaasad dhabaqsan oo isku jirta oo murugsan oo dhinacna aan loo raaci karayn waxaa la yidhi nin reer miyiya baa wuxuu helay oo soomaaliya 10 nin oo siyaasiyiin soomaaliyeed oo u ololeynaya malaha olole doorashooyin iyo waxaas 10kaa nin laba baabuur baa la gadoomay dabeetana isagoo meesha maraya ayuu la kulmay dadkii oo taahtaahaya oo qaarna dhinteen 10kii qofba xabaal buu u qoday dabeetana u aasay dowladdii oo maqashiba oo timi waxaa lagu yidhi dadkii halkan marayay ee baabuurta la gadoontay aaway wuxuu yidhi waan aasay dhammaantoodba waa la weydiiyey waxaa la yidhi oo dadki miyaadan eeginba cid dhimatay iyo cid nool inay isku jireen marka wuxuu yidhi wallaahi markaan xabaasha ku ridayey xabaal dheer baan qodayoo oon ciidda ku rogayey qaar baa qaylinayoo lahaa war waa nool lahay oo kuwaa maxaad uga soo saari weyda baa la yidhi waa siyaasi buu yidhi yaa rumaysan karaya waxaan kaloo siyaasadda soomaalida ku tilmaamaa anugu maamul u hadli maayo iyo gobol iyo midna laakiin soomaali weyn oo dhan markaan isku daro waa 2 qolo waa 2 nin oo walaala ah waxaan tusaale ugu soo qaataa 2 wiil oo yaryar oo dugsi hoose dhigta oo ka habsaamay dugsigii ayaa macallinka weydiiyey kii hore wuxuu yidhi maxaad ku soo habsaantay maxaad ku daahday yarkii uu ooyey wuxuu yidhi macallin shilin hooyaday soo siisay oon rabay break timeka inaan cuno ayaa iga lumay dabeetana macallinkii wuu garoonsaday wuxuu yidhi gal gudaha kii kale ku yidhi adigu maxaad ku daahday wuxuu yidhi macallin shilinka walaalkii ka lumay ayaan ku taagnaa si aan u helin weligiiba oona dhow qaataan dabeetana sidii iigu wareegayey ayaanu isla habsaanay waxaad maqlaysaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare is haysta 2 gobol baa is haysta dad baa is haysta 2 qol ama 2 kooxood midna shilinkaasuu ku taagan yahay midna waa ku wareegaya soomaaliya oo dhan sadbursiga oo maamuladan soomaaliya oo dhan badankooda ka jira oo qolana ay iska kiilanayso qolana ay gaajo u dhimanayso iyana waxaan ku tilmaamaa sheeko ah waa soomaali weyn oo dhan waxaa wiil iyo gabadh walaala ah ayaa cuntada meel la isugu ridi jira hal saxan waa reer miyi dabeetana gabadhaa boobta yarku maalin walba u qaylaa wuxuu idhahdaa hooyooy way iboobaysaa hooyooy way iboobaysaa buu idhaha aabbihii baa maqlay maalinta dambe ka xanuunsaday wuxuu yidhi xaaskiis intuu la hadlay naa waxaad yeeshaa yarkii waa iga baktiyee midba gooni ugu rid dabeetana gooni baa loogu riday saxankii baa gabadhii halkaa la fadhiisatay wiilkiina halkaa dabeetana saxankeedii bay 2 gacmoodba ku cuntay ilaa waxay barateen dayn maysa yarkii baa markaa qayliyey qayladii markaa way ka duwantay tii hore wuxuu yidhi aabbow way isboobaysaa buu yidhi
marka dad badan baa isboobaya oo labada gacmood wax ku cunaya waayo intaan kaga baxo dhinaca siyaasadda iyo sidaan anugu u qiimeeyo anugu ka hadli maayo 4.5 iyo 3.5 iyo 1.5 markii ay halkan ka bilaabantay sheekadaasi markii hore waxaan sii math baa la galay xisaab wada 0.5 iyo 6 meelan ka soo gudub saxaafadda marka laga soo bilaabo xilliga calanka aynu qaadanay 60gii ilaa 90gii waxaan dhegeysan jirnay idaacad la yiraahdo raadiyo muqdisho raadiyaha qura ayaa Soomaali weyn oo dhegeysan jirtay wuxuu ahaa raadiyo kacaana oo laga sii daayay markaan barnaamijyadii ka bixi jiray waxa ahayd kuwa taageersan dawladda waxa ku jira oo kale ammaan fara badan heeso tilmaamaya waa sidaan ku garaadsanay idaacad BBC la yiraahdo ayaa iyana hadli jirtay 5:00 galabnimo idaacadda wax badan oo ka duwan ta Muqdisho xilliga ma sheegi jiray intaas Soomaali war u ahayd مثلا هدي مدحوينا الله يقعنا ودينتو طبعا كسبح نبو أما أرورتي سومالوين أردن وحي وعن شرتي شنتي بركة قلبت ساكنة طبعا كبود دينتني كاس مركز لقى ريبو أنت أفكا أما أفكا قلاد تقانا إذا على أجنبي قد يستمويا دتك ساسا حاجة صحافة يو ورركا أي وقد يقال عاين دبيتنا لما أنتوا بوحي لقب سدين راديها مدحوينها أمانية أما الدولة وحقبت كذا كشكانية برنامج العافماتك دقالها وحبرشة اليوم اللي يسنجر أنت مركز اللي قصوا قدو واحد شري هنونينو صوماليا مركي كعانك وها أنت وذاك هذا ندي بدنا حسوسيو أورينتيشن كول بوحة كبح شري خطبة إيه هسا كعانة ودتك مركزي مدى دالو إيه انترتينمنت لو قد يجري سيان السياسة ده مدى حول قل waayahay nin ka mid ah madaxdii Soomaalida xilliga ayaa markuu hadlayo kacaanka la iska wada dhisaya ayuu wuxuu oran jiray ku bilaabi jiray dadka waxaan salaan diiran oo kulul idinka sida madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya marka shacabka la iska wada daraa wuxuu waxa yiraahdaba maalintii dambe maxamed siyaad barre baa dhoofay oo qadar tigay isla ma oga dadkuna waxay dhageysteen warkii 6 barka markuu bilaabay madaxweynihii baa idin soo salaamay oo aan salaan idinka sida ayaa dadkii shacabkii timi waayeen markaas uu yiri maxaa dhacay dhigta lagu sheegay waxa la yiri maxamed siyaad saa ku dhoofay warba ma hayade intaas ku mushaharkiisa ku qaata noloshiisu ay tahay odaygii baan salaan idinka sida oo beena xilligan imka la joogo salaantaas way dhamaatay ma maqli karno madaxweynaha soo salaamay xilligii kacaanka xilligii hanti wadaaga waa laga soo gudbay xilligii labada idaacadood la dhageysan jiray waa laga soo gudbay 150 idaacadood ayaa la dhageysanaya YouTube baa jirta technology baa horumaray qofku warka wuxuu ka heli karayaa in a minute telefoon baa jira telefoonkaaga ayaa TV walba ku daawan karaysa taasi waxay keenaysaa in qofku uu ka haqabeelo inuu fikirkiisa u dhiso oo fikirkiisa hadlo oo dadka afkaartooda uu dhageysto wadanka Masar laba nin oo saaxiibo ah israacaya ninna diinta masiixigu haysta ninna ta islaamka مساعد كهرت سيكون بالله ما يقول لي أنا وتكني أنا صوتكو لكن اسمه قب قبصدان اسمنا ماجان صومالنا هدات رايد قبل هبل قبل كعين كاسة حبا كير خلدن ويقول لي رير كاسة نعبتاي أما وحلا سو عقدت باكاه يصير رير كا هذا رير بكمان نكست أو صومالي أو فكر جديدة عقدت بقبا والديفينيشن كلمة الله سيوم معناه أما رير بوكو قاسين marka durbo waxaanu khaladnay afkaarta kala duwan ee ay dadku qabaan idaacadaha Soomaalidu waxay xoog saari jireen oo ilaa xoog muddo dheerba labada idaacadood aan sheegi jiray aan ka sheekeynayay waxay wareysan jireen dadka dagaal oogayaasha dadka wax burburiya may wareysan jirin victimska iyo dadka dhibaatadu ay gaadho ee dhibanaha intii aan idaacadaha ka shaqeyn jiray waxaan aad u jeclaa in la wareysto oo xoog la saaro dadka dhiban halka laga wareysanayo ninkii qarxiye daarta marka ninka daarta qarxin doona ama qarxiyay in la dhageysto oo dhigaha dadku ay maqlaan waxa ka wanaagsan in la wareysto kuwii lagu dumiyay meesha kuwii la dhacay kuwii xaqooda la duudsiyay iyo wixii la dhibay oo dhanba
waxaan danayn jiray in la dhegaysto codka ummadda soomaaliyeed ee tabaalaysan kuwa awoodda loo sheegto kuwa la jirdilo kuwa la dulmiyo iyo kuwa xaqooda la duudsiyo iyo weliba kuwa codkooda la qariyo xilliyadan dambe qof kasta oo codkiisa la qarin jiray ama aan la ogolayn in si babliga loo maqlo wuxuu heli karayaa facility-ga markaynu ka hadalno technology-ga cusub in telefoonkiisa xataa uu ku duubi karo fakarkiisa su-aasha ugu badan oo ay 25 sannadood Soomaalidu weydiinayso waxa weeye qof kasta oo hadla oo aan wareysto telefoon baa wuxuu iga yimaadaa dabadaha waxa la weydiiyaa waa qolomo calow ninka aad wareysatay ee shiidaalka ka hadlayay war qoladan baas maxay daba dhigay waa reerma gabadha hibley halkaa ka hadlaysay waxay danaynayaan qofka qabiilkiisa ma danaynayaan waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu ummadda u soo jeedinayo gobolada Soomaalidu waxay jecel yihiin inaad maagtid Xasan Sheekh waa madaxweynaha dowladda federaalka haddii Xasan Sheekh iyo dowladda aad taataabatid dad badan baa kuu soo diraya salaamo iyo hambaliyo laakiin haddii aad tiraahid Cabdiweli maxaa ka khaldan waxa kula dagaalamaya kumaan qof anigu cali ahaan uma shaqeeyo Cabdiweli maxamed cali gaas uma shaqeeyo أحمد محمود سيلانيو وما شقيو حسن شيخ لكن وحنو شقيا ومدة دبان الشعب كالصوماليات الشن يلا بعتك السنوات لقيت مري دوشوا المري بيت الوشي وركو وامحي أنا سوق بقبل دولة برامج كذا ران لي هذا وركو وامحي مركل الله ورك الله حيسيا وحلقت الماما تصالحان أي بانين قنيني أي ayaa nin qaninay maaha war cusub oo dhagahaagu ay soo jiidanayaan laakiin waxa war cusub ah nin baa ay qaninay annagu waxaanu xiisaynaa waxa dadka ku cusub ma xiisayno ammaan loo jeedinayo nin la iska dhisayo waxa dadka Soomaaliya xilligan hogaamiya ay warbaahinta annaga noogu yimaadaan marka ay doorashooyinka galayaan in laga duubo waraysi aad u fara badan oo ay ammaantooda iyo waxqabadkooda ay ku sheeganayaan markay kursiga fuulaan qofkii yiraahda madaxweynuhu waxbuu naga khalday waxay jecel inay xidhaan waxaan aad uga xumahay dadka sida warkaydii soo gaarsiinaya ee saxafiyiinta Soomaaliyeed ee waliba gudaha Soomaaliya jooga in maalin walba lagu xidhxidho Somaliland Puntland Jubaland koonfur galbeed Soomaaliya Muqdisho iyo meel walba telefoonada lagu hanjabaa waa la xidhaa hal tusaale oo gaaban baan siinaya nin magaciisa la yiraahdo Jaamac Dabarani ayaa lagu xidhay 2 jeer Garowe Puntland waxa loo xidhay wasiir baa yiri in warayso wasiirka faafinta dabeetana uu waraysto hawadu galiyay wasiirkii baa dadkii canaanteena waxay yiraahdeen su'aalaha adag buu ku weydiiyay inanka iminku ma maqli jirteen haddaan kooyaa hadduu xasuustayba dib ugu noqday yarkii buu xidhay adduunyadii baa qaylisay waa la soo daayay ninkii xidhnaa muddada dheer ee loo lahaa maxaad u waraystay wasiirka ayaa Cabdiweli maxamed cali gaas u yidhi kaalay waraysaadana waraysi buu ka qaaday waraysigii wuu baxay waraysiga kadib waxaan eegayaa anu tolo goorma haddana la xidhi doonaa laakiin ilaahay doorkan wuu badbaadiyey qof kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya inuu war gudbiyo Soomaaliya gudaheeda awood uma leh inuu warka gudbiyo waa la xidhayaa ama la hanjabaya nin ka tagay oo hayo Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Cabdisalaam oo xog haye fara badan oo shidaalada Soomaaliya shirkaduhu sida u xadaan hayay ayaa tagay Soomaaliya dabeetana wuxuu soo marmaray gobollo fara badan xogtii markuu soo urursaday wuxuu ka bilaabay Muqdisho Garowe Somaliland meel walba uu tagay cid waraysto waayay qof kasta markuu u tago ila xogta sanaya ayuu yiraahdaa adeer haydil markaan ka qaado waraysigan ama waa la idil ama waa la xidhaya dabeetana 2 bilood kadib buu aniga yimi markaasaan waraysigii ka qaaday waraysi aad u faa'iido badan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iiday sida loo khiyaameeyo ayuu ahaa laakiin dadka inay xukumaan ma doonayaan in la sheego sida la inoo khiyaameeyo waayo waxay u shaqeeyaan
kuwa ay khiyaameynaya anugu mar walba waxaan la jiraa shacabkayga ma jiro gobol aan taageersanahay cidda aan u dhashay ee qabiil marka laga hadlayo waa magac carabtu magaca saddexaad bay qabiilkooda ka dhigtaan diintan islaamku waxay qabtaa in qabiilku uu noqdo mid la isku garto qofkaasi oo sidii taarikadii ama bileed number oo kale u ah laakiin inaan cid wax ku yeeleeyo ama cid ugu wax yeeleesho marnaba raalli ka mihi waxaan la jiraa ummaddayda Soomaaliyeed waxaan u arkaa inay mid tahay Furo Muqdisho Baydhabo Hargeysa Puntland cidda meel kale igu tirinaysaa iyadaa ka jawaabi doontaa ama iyadaa og studio aan ku leenahay magaalada Minneapolis waxaan aad ugu soo dhaweynayaa cid kasta oo dulman cid kasta oo haysa xuquuq darro ka hadlaysa xaqeeda ka hadlaysa si madax bannaan iyagoon cidna maagin iyagoon cidna aahin waxaan kaloo soo dhaweynayaa cidda kale ee qofka ka soo horjeeda ee qofkaasi wuxuu baal maray xaqiiqdii dhabta ahayd waxaan difaacayaa gobol hebel oo waxaan sheegayaa runta ama xaqiiqda jirta isagana waa soo dhaweynaya waxaan u shaqayn doonaa inta nolosheeda ka hadhay ummadda Soomaaliyeed iima kala sokayso Muqdisho aan laygu diri karin Gaalkacyo aan laygu diri karin Lawiyo Cad aan laygu diri karin waxaan laygu diri karin Baydhabo waxaan ku soo gabagabeynayaa idinku aad u mahadsan dhageysiga inta aad ii dul qaadateen raalli aga ahaateen in aan u soo jeediyo dadka mas'uuliyiinta aynu ku tilmaano ee Soomaaliya maanta hogaaminaya in ay tacadiyada iyo xariga ay ka daayaan dadka wararka u soo gudbinaya shacabkooda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo kale inaanan anigu cidna u joojin doonin oo aanan cidna ku eegi doonin il naxariis leh oo ah Muqdisho iyo Baydhabo iyo Garowe iyo Hargeysa kana ku xiga iyo kana ku sokeeya ilaa inta dadkaygu ay ooman yihiin oo xaqiiqda ay ka fog yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsan yahay insha Allah taala gabagabadii baan ku jirnaa waqtigan waa sii dambe waqtigan gabagaba way hadduu alla idno saddex qof aan rajaynay insha Allah taala inay noo soo koobto baan hadduu alla idno siin doonaa haddana waxaan siin doonaa hadduu alla idno walaalkeen Maxamuud Heegaale oo maanta asagana reer buu hoodlaa oo nala jooga falyatafadal Heegaale dhammaan dadka halkan isugu yimi marti sharafta ragga hawsha soo abaabulay iyo marti sharafta iyo dadweynaha dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu horta Puntland ma ihi but I was once upon a time anigu waxaan ahay Khaatume State of Somalia baan ka soo jeedaa Puntland waanu isahayn walaalahayo Puntland way jiraan laakiin isku maamul ma nihin waxaase caawa halkan aad nooga markhaati furay Sacdiye Garowe gabadhii halkan ka hadlaysay aad baan u salaamayaa waxyaalihii aanu kaga guurnay Puntland walaalahayo in fact way caddaysay wax kale oo ka fara badan oo qarsoona way jiraan oo aan la doonahaynba in halkan laga sheego laakiin cadaalad darradu rag cadaalad waayay sidii cawsha kala yaac bilaadanku waxay ku wada joogaan waa afgarasho iyo cadaalad haddii la waayo nin waliba wuu danaysanayaa ummadda waxaa dantaa muhiima labada walaalaha ay hadday isku dan noqon waayaan waxa weeye dantu way kala raraysaa taana waxaa keenaya cadaalad darrada Puntland marka laga hadlayo deegaano fara badan oo maamul Puntland la yiraahdo uusan ka jirin baa carabka lagu dhuftaa anigu ma garanayo ujeedada laga leeyahay maamulkii Puntland meesha kama jiro boolis kama joogo ciidan kama joogo haddana magacii waa la sheeganaya macnaha waa wax lala yaabo wey arrintan 4.5 ka horta Soomaaliya riwaayad baa ka socota riwaayadana qofba waxbuu ku jira waxaad arkaysaa in lagu leeyahay hebel oo ku jira Yakuub
Sacdiye Cali oo ku jiraysa baylood laakiin de Sacdiye Cali inaanay baylood ahayn way noognahay laakiin way ku jiraysaa Cabdiweli iyo Xasan Sheekh waxba isma diidana anu salaamsanahay waxba isma diidana laakiin Cabdiweli wuxuu ku jirayaa 4.5 ma ogoli taas waa game political hadhow berito waxaad arkaysaa anada 2 weeks iyagoo wada joogo oo wada qoslayo oo wada socda baad arkaysaa Soomaaliya oo dhan ba horta game-ka noocaas ah baa ka socda marka taa halkaasaan kaga baxayaa arrintan Puntland waxaan jecelahay in la isku ixtiraamo oo rag badan oo hadda halkan ka hadlayba waxay magacaabeen gobollo aanay Puntland joogin oo aanay ka talin bay magacaabeen marka waxaan jecelahay anagu Puntland waa ixtiraamnaa waana walaalahayo laakiin deegaankooda ama at least inta ay ka taliyaan administration-koodu ka jiro inay ku ekaadaan baa fiican calankii Puntland ee ka taagnaa Laascaanood rag baa ka qaaday Puntland kama hadal may soo ceshin Ceerigaaba wuu ka taagnaa kamay hadal wax aad loo yaabo madaxweynaha Somaliland baa wuxuu yimi Laas Qoray uu ka noqday xeebtuu soo maray dadweynaha wuu soo dhex mari kari waay isagoo ka baqaya dadka deegaanka degan oo Puntland taageersan xeebtuu ku soo dhuntay wuu soo maray faras magaalada lagu dajiyay wuxuu yiri iskuul iyo waxbaan dhisay oo uu dhuntay Puntland maxaa ka dhacay waxaa la yiri meeshan Laas Qoray waa in Puntland wafd u dirto waa in la tagaa waa in madaxi tagto Cabdiweli Wudi inuu tago hadda dadka halkaa jooga hadduu Cabdiweli tago waxay ku soo dhaweynayaan ubax fiiri ubax bay ku soo dhaweynayaan laakiin ma tagi karo marka waa inaad game-ka siyaasadda fahantaan laakiin Cabdiweli markuu hadlayo qardhow Laas Qoray waa Puntland markuu hadlayo laakiin ma tagi karayo ma tagi karayo buu hoole hadda waxaa jooga maamulka Somaliland iyo maamulka Khaatuma isku haysta miyaad aragteen wax Puntland oo ka hadlaya wasiirro Puntland oo ka hadlaya miyaad aragteen madaxweyne ka hadlaya miyaad aragteen Somaliland iyo Khaatuma isku haysta laakiin marka media laga hadlayo madaxweynuhu gobolka buu hoole waa Puntland baa la leeyahay marka anigu waxaan ka jeclaan lahaa haddii aan la raadin kara haynin Puntland oo weli cadaalad darradii intii naga hadhayba ay sii kala qaylinayso oo cadaalad darro ka sii kala tirsanayso dee inteedii hore waaba iska sii fogaanaynaa dad badan baa markaa aan sii fogaanaya waana arrin uun kolley burbur ku dambaynaysa haddaan la daba qaban Cabdiweli waxyaalo u ballan qaaday baa jira markii uu campaign-ka ku jiray in Puntland cusub la samaynayo dadka la isu keenayo shirar wixii haddana iska wada baabay waxa uu iska campaign-kaadii marka anigu waxaan markaa ku soo gabagabeynayaa Puntland anigu sida ay hadda ii muuqato ma aha Puntland tii aynu naqaanay ma aha waa Puntland siyaasadaysan waa Puntland hoos u sii socota berigii Cabdilaahi Yuusuf markii Puntland la sameynayay ilaahay ha u naxariistay labadii ninba waa dhinteen baa cigaal baa la wareystay BBC laga wareystay way ku duuban tahay baa waxaa la yiri ka waran waxaa la dhisayaa maamul agtiina ah oo iyaguna maamul noqonayo bal ka waran marka cidi madaxweyne lama dooran marka cigaal wuxuu diidanaa Cabdilaahi Yuusuf soo baxo wuxuu yiri haddii cid aanu is afgaranayno ay qabsato waa wada shaqayn karnaa waana wada hadli karnaa cid aanu is afgaranayno isagoo markaa Cabdilaahi Yuusuf ka baqay Somaliland markaa Puntland hadda waxay noqotay wax la afgaran karo lala hadli karo taas waa dhulkeedii loola wareegay dad la afgaran karo la fahmi karo bay noqdeen taas waa dhulkii ay ka talinsay ee calankeedu saarnaa loo dejiyay
marka waa su'aal mark Puntland horta ma jirtaa raalina iga ahaada anaga su'aal mark bay bataa naga tahay marka waxa weeye nimayo khayr baan idin rajeynayaa dadaalka inta ka kordhiya midnimadana ogaada midnimada Soomaaliya waxaan kaga tagayaa midnimada Soomaaliya 4.5 hadday u dhimanayso waynu diideynaa hadday u dhimanayso 4.5 midnimada Soomaaliya dee baabi'in mayno wixii ay ku kacayso midnimada Soomaaliya lagu helayo annaga waxba nalagu xantaa midnimada Soomaaliya un bayba isaga jibaysan yihiin waaba nalagu xantaa marka idina haddaad iminka nala ilaalinaysaan haddaad idinkuna iminka nala qaadateen midnimada Soomaaliya in wixii maaragtay lagu taagi karayaba lagu taago ee way ku soo dhaweynayna aad iyo aadna waa idin salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waa idin salaamayaa gabdho iyo rag iyo odayaal iyo siyaasiyiin iyo meediyaha dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaan tahniyad gaar u sii celinayaa qabanqaabadan gaar ahaan dadkii ka soo shaqeeyey si gaara ayaan maaragtay ugu tahniyadan ugu celinayaa intaas markaan ka baxo waxaa weeye haddee qolada hadda wax hogaaminaysa baa ugu dhaashay waayo wixii aan ku hadli lahaay oo dee waa lagu hadlay meel aan ka hadlaa male oo wax walba dee waa la sheego waa lagu hadlay marka dee hadal la yirina sheegidiisu maaragtay wax faa'iido ma laha marka waxaa weeye intaa markaan uga baxo anoo hadalka soo gaabinaya maadaama hadalkii dhammaantiis laga hadlay waxaan taageerayaa 4.5 waa taageerayaa waana taageersanahay waxaa weeye haddii waxa aan ummaddu ku tashan matal haddii aan soo qaato waxa maxay hayto ku dhacay wixii waayo arag waxaa lagu noqdaa wixii dadka soo maroo kale matal Soomaaliland waxaa ku dhacay oo matal dadkii la noolaa oo sool iyo sanaag markii ay goosanayeen lama ay tashan maadaama aysan la tashan ayagaa mowqif iska gaaray inay dadkaas muquunin karaan oo kale waxay dhaheen waa goosan waxaad ogtiin ilaa maantay waxba waa u suurageli laayihiin waayo ummadii deegaanka la ahayd oo aysan u tashan la tashan oo aysan ka talagelin daraaddeed ayaa ilaa maantay ay goosashadii ay Soomaaliland ay u laadahay sool iyo sanaag daraadoo tashi la'aanta aysan la tashan daraaddeed ay u noqotay waxaan u malaynayaa Puntlandna tiyoo kala haysata maadaama dadka deegaanka la ah oo Puntland la dhistay oo reer Puntlandiga aysan iyadoon la tashan dad gaara ay iska dhaheen 4.5 ma rabno waxaan u malaynayaa hadda waayo arag kuma aysan noqon wixii Soomaaliland ku dhacay oo kale tiyoo kale inay qabsanayso baan u jeedaa waxa weeye marka taas waxa weeye horta la tashi la'aanta maadaama aniga beel baan ka soo jeedaa beeshaydu mudug iyo nugaal iyo bari waa wada degtaa saasoo taana isinana waa leen aqoon-yahanina waa leen waxgaradna waa leen wax tixgelin ah oo nala ka siiyey in 4.5 aan diidnana ama nala kala tashadana ma jirto waxaan kaloo ogahay boqolaal la mida oo aniga beeshayda la mida inay buuxdo oo inay badan tahay oo dad fara badan tahay hadda waxaa la durwaagii la tag bartay kadhig waa ku ceeb wax badanaa Puntland waxay u baratay in maaragtay waxyaalo intay iyagu ay iska keensadaan inay dadka Puntlandiga la ama dhalasho ahaan ama deegaanka la inay dhahaan war waxaan shidadooda intii maaragtay ay fidma noo keeninaayeen nabadan ka dooranay ha qaateen oo kala bay u barteen laakiin taas xilligii waa dheeraaday samirkiina waa yaraaday ma suurogelayso baa qabnaa haddii macnaha waxaa weeye waxaa jirta dagaaladii labaad waxaa la yidhaahdaa Hitler ninkii la dhihi jiro Jarmalka haystay ayadoo ciidankiisii soo jabay baa saraakiishu u sheegi weyn war ciidankii waa soo jabay waxaa la yidhaahdaa waxaan sii qabsanay Faransa iyo adduun kale iyo Ingiriis iyo adduunyaa sii qabsanay dhaha ilaa iyo godkii loogu soo dhacay marka
waxaan taas uga dan leeyahay waxaa jirta markii Puntland la dhisayay waxay ahayd maxay ahayd gobolladii ka qayb galay waxay ahaayeen 5 gobol Sool iyo Sanaag Garowe iyo Bari iyo Mudug 5 gobol bay ahaayeen anigu 5 baan aqaanaa Sool iyo Sanaag Laascaano Garowe Boosaaso iyo Mudug 5taas inay ahaayeen baan u malaynayaa boohood haddii hadda gaar looga dhigay ma garanayo Laascaano inay ka tirsanayd baan u malaynayaa maya wixii gadaal laga sheegay anigu wixii Maxamed Siyaad baan aqaanaa wixii ka sokeeyay ma aqaano markii intaas maxay ahayd 5taas la dhisay oo 5taas ay dhisatay Puntland waxaan maanta ognahay Sool iyo Sanaag Puntland kama taliso waxaa kuu soo haray maxay ahayd gaalkacyo waad la socotiin gaalkacyana 50-50 waaye madhuuso mareeb bay raacaysaa mise xaggay raacaysaa waxa weeye inaan Puntland waxba ka fulin karin waxaa cad sid yar oo Damac Cabdiweli inuu dhiso wixii ka dhacay wuxuu ku dhintay waad ogeyday gaalkacyana ayana iska daa halka ayana uga har oo meel waxuu ka talis gacan ugu jira maaha waxaan u malaynaa Puntland iyadaa marti ku ah markaan waxaa kuu soo haray Boosaaso iyo Bari anoon ka been sheegayn waxaa weeye dadka deegaankaas Bari iskale waxaa weeye waa dad Soomaalinimada jecel waa dad degan waa dad madaniya markii maamuladii badnaa iyo dadkii reer Mudug ahaa iyo wixii qaxay iyo wixii SSDF ka yimid ay pressure badan saareen xaquuqdoodii oo dhan ayay uga tanasuleen ayagoo dhahaya war hadda bal hadday ku qaboobaya wax walba ha qaateen wax walba ha la siiyo wax walba ha ogolaadeen wax walba ha la magaciishi marka taasna waxaan u malaynayaa xilliyadan dambe ayaga oo wax badan dulqaad badan muujiyay ilaa iyo aan ognahay degmooyinkoodii in lagu maamulo oo dad meelo kale laga keenay la geeyay dulqaad badan ay subiyeen waxaan maxay ahayto kolley aniga aragtidayda hadda in dushoodii soo yaraatay waayo wax kastoo dheeraada dhibteeday leedahay haddii wax dheeraada ay soconayaan waxaan u malaynayaa dowladdii Maxamed Siyaad baa socon lahayd oo cid ka waxqabad badan aan la arag waaba samid cadaalad darro rabta inay wax dheeraada ku samayso marka Cabdiweli waxa weeye waa iyo waxa fikradaas la qababa waa Hitler oo kale oo loo sheegi karo wixii waa dhamaaday waa la soo galay gobol maayo magaciisa wixii bayaaniga ila tahay waxa uu hadda maanta 4.5 ku diidaba aniga ilama muuqato markii gobol oo haysto ma jirto waa Garowe oo asagu hadda uu ka soo qaxay marka waxaan leeyahay taas markaan taa halka uga baxo waa aragtidayda waaye maxay ahayto mana qabo shalay waxa waaye halka iska soo gaabinaa laakiin waxa weeye 4.5 jacayl Soomaaliya uma qaado waxay u qaadatay nabadgelyo xumada dalka ka jirta maxaa marka maanta isbedelay oo nabadgelyada la helay maxay tahay ma ka sii hoos baa mise waa ka sii xagga waxaan qabaa inay meeshii shalay ay joogtay inay ka sii xagga noqoto maahay inaan nabadgelyo la helin seejooyin maanta inta la dhigo ilaa gobol markii la yiraahdo seejooyin haddii xitaa hal gobol haysto seejooyin la dhigo oo nabadgelyo lagu dhigi karay miyaa jirta waa maya sidaa daraadeed waxaa lagu qasban yahay 4.5 in la qaato oo dee ummadii nala shaqeynaysay iyo UN iyo qaramada midoobeed iyo xal loo wada arkay baa anaguna xal u arkaynaa dal muquunin dambana waa dhammaatay beeshayda iyo beelaha daga Puntland oo dhan dib dambe loo muquunin doono waxa xalka guudahayna qaateen intaa markay waxaan ku soo gabagabeynayaa Puntland dadka u dhashay qaasatan reer abtigay waxay ahaayeen dad aad u faan jecel oo yiraahda halgankii Soomaaliyeed anaga keenay dhismaha Puntland anaga keenay midka xamar anaga keenay oo anagoo Itoobiya iyo wax wadana xitaa Muqdisho kan hadda maanta lagu caqdigayo dawladda dhexe anaga keenay hadda nimankii saas ahaayo ku faani jiray ma aragtay
hormuudkii soomaaliyeed maantay inay iyadoo waxa munaasabadaas xun la marayo inay iyagu maantay dee horseed ay u noqdaan inay soomaaliya maanta xaaladeedu way xun tahay iska sii xun tahay ee iyagu maanta sabab u noqdaan haddana inay sii weeqaan hadda beri fadhi ku darirkaas waxaan u malaynayaa inuu sii socon doonin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad bay mahadsan tahay insha allahu tacaala waqti waa nagu dheeraaday rag odayaalana waa joogaan hadduu alla idno waxaan rabnaa zakariya hadduu joogo zakariya hadduu alla idno zakariya rabnaa insha allah inaan kusoo gabagabayno kadibna insha allahu tacaala zakariya cali xaaji oo aad taqaanaan zakariya falyatafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بوين السلام يا جارهان ورياشة. بدلان ما أنت دتك الجوجا. بدلان ما أنت دتك الجوجا أما حلك وهاية وادد وح مقرتها واي. وادد أنا أقون ديجان كدتك كنول وادد أنا أقون إهل لماذا يقرأون لماذا وادد أنا أقون طول لماذا قيمها إلهها وادد أنا أقون السماذا يؤذيال رقماتك شرفت يقيمها إكلين ديجانك. عبد الله علي قاسد الله سعطان السمدي أما مدة كسر جدا أنا مصوري السناجي عين أما هكسر جدا قبل الله دامبري عدو حشمي ما أنت مجرته عدو حكي لجيستنا مجرته أفرت قضية سجل ما درتي كليو لجيستها أنا جي السكرية أهان وحنا دين شيء 4.5 حتى الصومالي اسكر راعي وأكو قصبنا هنا أنا وتاجره oo walaalahay Soomaali aan dhinaca ka raaco anoo og 4.5 inaysan mataqaana wax jira oo dadku diiniin xataa hadii la yiraahdo wax jira oo ku sii jiri kara inaysan hayn haddana Soomaali haday isku raacdo day codkaygu waa 1% xataa ma noqonayo Soomaali haday is raacdo waa raacay xagee uga hara meel aan uga hara ma jirto waxaan kaloo rabaa walaalayaal inaan idin sheego aniga muddo hadda laga joogo dhowr bilood dhalinyaro isku tagtay oo kasoo jeeda deegaanada gobolka bari ayaa waxay ii doorteen oo ii magacaabeen afhayeenka qurbo joogta gobolada bari waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo maamulka hadda Garowe anigu Puntland maadaama dad iga waaweyn oo sharaf leh oo qiimo leh ay joogaan baan hadda magaca Puntland soo qabtay laakiin anigu waxaan idhahdaa maamulka Garowe afkayga kuma soo qabto Puntland run baa fiican waayo Puntland dad isjecel oo wada socda markaad aragto magaca qiimo uu leeyahay sharaf buu leeyahay laakiin markaad aragto dad ummadda neceb deegaankana neceb dana gaarana ku wata magaca oo dhan waxa ku qabanaysa inaad ka cararto dowladda Soomaaliya ku meel gaarkii maadaama laga baxay waxaan ku qasbannahay shacabka Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan dowladda Soomaaliya garab istaagno waxaan ku qasbannahay dowladda Soomaaliya inaan taageero waxaan ku qasbannahay ninka dulmiga wada oo Cabdullaahi Ali Gaas la yiraahdo inaan si wada jir uga soo wada horjeesano oo runta u sheegno isaga iyo kuwa dulmiga